Salaamullaahi calaykum kusoo dhawaada channelka Somali Tube. Dhammaantiin waxaan nahay arday xaqaa'iq raadis ah. Maanta waxaynu ka hadlaynaa cilmi baadhistii arxanka darneyd ee sida bahalnimada ah ay bini'aadmiga ugu samayn jireen xukunkii Naazigu. Dadkaas oo badi ku soo qabtay dagaalkii labaad ee adduunka iyo ummado ku noolaa wadamadii uu ku duulay. Auschwitz waxay ahayd dhulweynihii Jarmalku qabsaday bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka 1940 ilaa 1945. Maantana waxay dhacdaa wadanka Poland. Goobtani waxay ahayd kaamsada kawaanka xoolaha lagu gowraco bini'aadmi. Bartaas oo ay ku samayn jireen cilmi baadhis caafimaad ku tijaabin hubabka kimikaalka ah ee wax kumaada. Waxaa intaa dheeraa in lagu talaali jiray cudurro ugu kaydsanaa laababkooda. Waxaa lagu qiyaasaa meeshaas inay ku jireen tiro kor u dhaafaysa 1.3 milyan oo isugu jira dumar, dhalaan iyo waayeel. Haba ugu badnaadaane Yuhuudi Yurub ku daadsanayd, Boolandiis iyo ciidankii casaa ee midowga Sofiyeedka. Rajko waxay ahayd xero ka mid ah xeryihii ciqaabta ee ku yaalay Auschwitz. Laakiin meeshan waxay meelaha kale uga duwanay. Dadka meesha ku jira waa dad loogu adeegsan jiray cilmi baadhista caafimaad. Dr. Joseph Mengele waa professor ku takhasusay anthropology-ga. Wuxuu dhashay 1911 wuxuuna ku dhashay gobolka Bayer. Wuxuu ahaa doctor aad u arxan daran. Cilmi baadhistii uu samayn jirayna waxaa ka mid ahaa inuu isu dayi jiray in uu laba qof oo nool in uu jidhkooga isku tolo. Hadda waa laba qof oo nool inuu jidhkooga isku tolo. Tolniil caadi ah. Weliba hariga kaliya iskuma toli jirin, waxa uu kaloo isku toli jiray oo isku xiriirin jiray wadnayaashooda iyo xubno muhiim ah. Isagoo aan u adeegsan suuxiso, xanuun baabi'iye, dhiig joojin haba yaraatee. Dadkaasina waxay naftu ka bixi jirtay ayagoo aad u qaylinaya ama aad u xanuunsanaya, dhiig bax, infekshinno. Waxaa kaloo samayn jiray maadaama dadka indhaha cadcadle ama indhaha baliisha leh ay aaminsanaayeen inay bini'aadmiga kale ka sarreeyaan. Wuxuu indhaha ka bedeli jiray ubadka yaryar ee meesha ku dhasha ama ubadka yaryar ee meesha jooga, isagoo u adeegsan jiray irbado. Kabacdina uu kalarka kaga bedelayo bu'da isha. Waxayna sababi jirtay inuu ilmaha yar indha beelo ama inuu uba dhinto. Waxaa kaloo ka mid ahaa dhigtooradii ka howlgeli jiray Dr. Faransiiska u dhashay oo u shaqayn jiray xukunkii Naaziga. Waa Dr. Robert Weitz. Wuxuu ahaa takhasus medicine ah. Block 10 waxay ahayd meel gaar u ah dumarka qudha. Waana meesha ay ku samayn jireen qaliinka dumarka uurka leh si ay wax ka ogaadaan embryology-ga marxaladda uu ilmuhu maro. Waa wax laga yaxyaxo isku dayo aan caqliga bini'aadmiga ruuxiga ah ku soo dhicaynin. Shaydaan baa samayn kara ficilada noocan ah. Waxay qali jireen qofka dumarka ah iyadoo uur leh oon loo adeegsan wax suuxisa ah. Kabacdi waxay eegi jireen ilmaha marxaladda uu marayo. Ditoolana way dhiman jirtay. Ta ku xigta oo bisha labaad bay soo qaban jireen. Bisha koowaad ilaa iyo bisha 9aad dumar ku jira oo 9 dumar ah ay kala mid qali jireen si ay u ogaadaan marxalad kasta oo ilmuhu marayo. Run ahaantii dadka reer galbeedkii dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii ay isku geysan jireen iyo waxyaabihii ay bini'aadmiga ku samayn jireen haddii wala soo koobaya la dhaho, yacni caqliga saliimka uu diidayaa. Inshallah waxaa inoo balana mar kale oon ka wada hadli doono dhibaatooyinkii uu laftirkiisa Jarmalku u geystay wadankii Namibia uu gumaysan jiray. Wassalaamu calaykum.